Bismillah. Ragga Soomaaliyeed ee ku fekeraya in ay sameeyaan guur badan oo maskaxdoodu ay mar walba ka fekerayso siday u sameyn lahaayeen guur badan. Waxaan leeyahay walaalahayow, horta intaydin ka fekerin inaad guur badan sameysaan, bal su'aalaha naftiina weydiiya. Su-aasha koobaad waxay tahay, naftaada waxaa weydiisaa oo tidhaahdaa, Allah Rabbi subxaanahu wa tacaala guur badan buu baneeyey, laakiin yuu u baneeyey? Su-aasha jawaab markaad u hesho, su-aasha labaad oo isweydiinaysa waxay tahay, Ilaahay Rabbi subxaanahu wa tacaala dad gaara buu u baneeyey guurka badane, adigu ma ku jirtaa? Adigaagan ku fekeraya guurka badan ma ku jirtaa dadka Ilaahay guurka badan u baneeyey, mise waxaad ku jirtaa kuwii uu yiri hal xaas ku ekow? Labadaas su-aalood markaad jawaab u hesho, saddexdan su-aaloodna iyadana naftaada weydiiye. Su-aasha koobaad waxay tahay, xaaskan cusub ee hadda aad raadinayso ma u awoodaa maskan iyo meeshii ay degi lahayd in aad u diyaariso? Su-aasha markaad jawaab u hesho, su-aasha labaad waxay tahay, xaaskan cusub ee hadda aad raadinayso iyo xaaskii hore aad haysay ama xaasaskii hore aad haysay, jeebkaaga waxa soo gelaya biil ahaan ma ugu filan yihiin oo ma u qaybsami karaan? Jawaabta iyadana su-aasha iyadana markaad jawaab u hesho, su-aasha saddexaad ugu dambeysa waxay tahay inaad isweydiiso, adiga raganimadaadu ma u awoodaa inaad ku qanciso intan aad xaas ee aad rabto inaad guursato? Intaa mid ka mid a saddexda su-aalood aad isweydiinayso mid ka mid a hadday jawaabteedu ay noqoto maya, ninka Soomaaliyeedu waxa aad shaqaysanayso waa cadaab iyo caro Rabbi oo adduun iyo aakhiraba aad rabta korkaaga inay ahaatee. Ka taxadar halkaaga xaas aad haysato, haddaad 2 haysato, haddaad 3 haysato, inta aad haysato ku mintid, intaana xaqooda meel saar, xaqoodana iska ilaali. Ilaahay Rabbi subxaanahu wa tacaala mar walba bari inuu adduun iyo aakhiraba Ilaahay ku ilaaliyo biidhnillah. Assalaamu calaykum.